Hey, how are you? Welcome to my YouTube channel. Aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa inaad caafimaad qabtaan rajaynaya. The first thing aan kaa doonayaa subscribe. Waa codsi biidhnillah. This is my first video. Waa muuqaalka ugu horreeya weligay yaalaa YouTube soo dhigo. So I hope tafaacul fiican insha Allah aan ka helo. So in badan baan ka fikirayna YouTube channel samaysto for a long time imika honestly. For those of you any garanayn ama ay tahay markii koobaad ay arkaan magacaygu waa Tutor Anwar waxaan macallin iga luqadda Englishka dhigayna 7 sano ee ugu dambeysay. So if you want to speak English, hadii doonaysa luqadda English ku hadasho, you are in the right place. Meeshii saxnayd ayaad joogtaa. Let me help you. Adna soo kale caawi. Subscribe biidhnillah. So inshallah on this channel waxaan ku qaadan doonaa casharo aad u tiro badan biidhnillah oo la tacalluqa luqadda Englishka. Sidoo kale waxaan ku qaadan doonaa personal development ama qofku suu naftiisa isku horumarin karayo. Waxaan ku qaadan doonaa time management ama waqtiga qaab caynkee aad u haytolay xakamayn kartaa aad u manage karayn karaysaa. Sidoo kale waxaan ku qaadan doonaa softwares iyo applications aad ku anfici doona. Daily routines baynu ku qaadan doonaa. Too many things inshallah aynu ku qaadan doonaa, but the main thing is going to be Englishka inshallah. Waxaan ku soo gudbin doonaa idioms, waxaan ku soo gudbin doonaa buugaag, waxaan ku soo gudbin doonaa grammar lessons, pronunciation lessons, accent ama lahjadaada ama if a British accent doonayso or if you want an American accent labadaba inshallah. I'm going to do my best sida luqadda Englishka kaga caawiyo iyo waxyaabaha kale iyagana sidoo kale aan xusay. So waxaa dhici doonta waxaan samayn doonaa schedule maalin kastoo sabtiya hadaba I'm going to upload a video xagan. So subscribe and turn on the notifications. Jeliska yar even furo si markaan muuqaal soo dhigada u notification inshallah ku soo gaadho. Waxaan kaga hadli doonaa muuqaalka yar inshallah gaaban anigu yaanay. Yani who is Tutor Anwar as a person? So kale waxaan kaga hadli doonaa luqaddan Englishka adiga noloshaada qaab caynkee u bedeli kartaa ama saameyn intee in leega ayay ku yeelan kartaa. Asoo waxaan kaga hadli doonaa qaabka ugu fudud ee u baran karayso. Channelka waxaan ku soo gudbin doonaa I guess inaan ka soo hadlay. This is my first time muuqaal dharkiisu inta leegi aan duubo, so excuse me guys. So luqaddani baan ku bilaabo. Luqaddani obviously it's international language. Dhammaantoon waa ognayn luqadda caalamiga tahay. Too many different aspects noloshaada anoo ka caawinaysa. Mid shaqo hadday noqoto, safar hadday noqoto, horumar nafeed hadday noqoto, ganacsi hadday noqoto, dhan walba luqaddani way ka caawinaysa. Oo imika waqti xaadirkan joogno yani artificial intelligence ba wax walba la wareegaya. Mumkin aad ChatGPT oo kaliya ka taqaano ba shaqo kasto adduunka ka jirta maanta waxa qaban kara ama qabta qaarkood AI. Si aad AI ga u fahanto waxa laf dhabar kuwana luqadda Englishku ku dhisantay. Haddaad safrayso oo qof wax u socdaan ay tahay u family u maqan yahay waxa laf dhabar kuwana luqadda Englishka aad garanayso. Haddaad qof shaqo inuu bilaabo doonaya aad tahay hay'ad inuu la shaqeeyo, NGO inuu raaco, shaqo isaga u gaar xataa inuu bilowdo, inuu alaab soo dalbado, Shein ka soo qaato, Alibaba ka soo qaato, aad doonayso. Iyadana waxa laf dhabar ku noqonayso luqadda Englishka inaad maxay tolay garanayso. Haddii aad arday tahay wax barta, dugsi hoose haddaad tahay dugsi dhexe, jaamacad, master ilaa iyo PhD, waxa laf dhabar iyaduna luqadda English inaad garanayso oo ku wanaagsantahay. So aspects-ka iyo kuwa fara badan oo kale oon hadda xusin waxa laf dhabar u luqadda English. Waqtiguna u ordaya 2026 ba yani few months ay nooga hadhay. Shalay bay ahayd 2025 markaynu ku dabaaldegayna lahayn 2025 now 2026. So time is running so fast. Aad ka faa'iideysto waqtigaagu aad buu muhiim yahay. Soo kale waxaan rabaa inaan ku daro luqaddan waa xirfad. What I mean by waa xirfad is yani if aad hal mar barato sida baaskiilka loo wado that's it. Mar dambe dib u baran maysid. Luqadduna waa la mid. If aad hal mar si sax ah u barato that's it. Waa barato. Maaha wax isbedbedelaya, maaha wax sanadba sanadka ku xiga version cusub uu imanayo, sanad Chinese baran maysid, kala Turkish, Russian. Mariba luqadda Englishka barato that's it. Mar kala barato uma baahanaysid.
So hal mara kaa go'do see 6, 7, 8 months, a year or 2, you're safe. Adduunkaad la jaan qaadaysaa. Technology-gaad isku wanaanaysaan. Waxbarashadaad ku fiicnaanaysaa. Safarada waxbaa kuu qorshaysan baa kuu fudaanaya. Businesseska ganacsigaad rabta inaad bilaabato ama aad gasho ayaa iyaga laftigoogu albaabo fara badan oo kale ay kuu furmayaan. So if aynu halkaa kusoo dhammayno faa'iidooyinka ay leedahay luqaddan English inagoo aan dhammayn karin bar ka mid oo iminkaan maxay toonay kuu sheegay waxaan kuu raacin doonaa soo kale qaabkaad u baran karto. For those of you who are interested, anu macallin baan dhiga, so I'm going to show you the right path, or I do have my like online courses if you're interested. Haddii kale adaa isku dhigi karaa. Yani ardaygu uu qaadi karaa wadada aynu isagu wax isku dhigo. YouTube videos baad daawan doontaa. And by the way, aan xaggan idinku wadaagi doonaa. Channels baan la wadaagi doonaa. YouTube channels baan la wadaagi doonaa. Websites, links, Telegram channels, waxyaabo fara badan ama resource fara badan oo luqadan kaa caawin doona. And inshallah xagga kula wadaagi doonaa. So laftigeedu waxaad aad ka heli doonto these channels. Inshallah techniques kaas oo dhan channels kaa caawin ku siin doonaa. Xaggana inshallah kula wadaagi doonaa. So again, subscribe. Haddana doonin inay maxay ahayd toolay ay ku dhaafaan. So dhankan dhigista markaynu u soo noqonno arday waxaad samayn karaysaa hartu jadwal. wax kasta oo la qorsheeyo ama jadwal loo samaystaa wax mir dhal noqda. So waxa isku dayay jadwal samaysato maalinkii saacad ama 2 saacadood oo kaliya. Saacad even it's fine. 40 daqiiqo waa perfect. Atira 40 daqiiqo naftaydan horumarinaya luqad baan baranaya. So ama coach raadso macallinku haga oo luqadaad ka barato ama adigu samayso saacada YouTube channels daawo buugaag akhri and I think I said that before. On kula wadaagi doona xaggan inshallah talaabooyinkaas oo dhan. Laakiin qaabka ugu wanaagsan ee luqadan ku baran karaysa waa inaad qofku haga hesho adigana ay ka go'antay. Arday fara badan baa arkaayo oo dhiga ardaygani wuu ka go'an tahay marka koobaad wuxuu wadayaa la say 2 or 3 weeks ka bacdu caajisaya. Waxbarashadu yey marnaba caajis ka noqon. So kuwa discipline kana ka go'an tahay laba inaad waqti iska soo jarto. shayga hadduu si kasta kaaga go'an yahay waqti siinaynin dee faa'iido ma yeelanayo. So time C saacad 40 daqiiqo 2 saac haddaad awoodo iyada laftigeeda 3 vision yeelo ama wado. Yani maanta xaggan aan taaganahay halkaasaan u baahanahay. Beginner baan ahay, elementary baan rabaa inaan gaadho. Elementary baan ahay, intermediate baan doonaya. Intermediate baan ahay, advanced baan rabaa. Advanced baan ahay, waxaan doonayaa fluent noqdo on qof dariiqa luqadda English aan maxay ahayd tole ku noqdo ayaan doonaya. So wado aad marayso oo toosa maxay ahayd tole yeelo taasina aad bay ku anfici doontaa. Arday aad iyo aad bay ku anfici doontaa. Waxyaabaha kale channelkan ku qaadan doona inshallah it's going to be self development ka sanadin sheegay. Naftaasad yani schedule aad u samaysan karto cibaadaadkaaga iyo salaadahaaga aad u ilaalin karayso. Aad some motivation stuffs and you're going to see inshallah. Su'aal baa jirta aad lay weydiiyo. I'm feeling so comfortable with the camera and aad baan u dheereeyaan filiyada. Waxaa jirta a question aad lay weydiiyo and it's related with the accent wal lahjadaha. So badana example kan bixiya waxa weyn imka anagu Soomaali banay qofka imka daawanaya you're Somali mumkin ad mixed they have Arab half Somali batay. If aad Djibouti joogto waxaan ka yiri lahjadgaad ku arsh. If aad soo kale Ethiopia joogto aga awowgii la gub lahjad gaara aad ku hadlaysaa. Soo kale haddii aad Muqdisho joogto ama aad Xamar joogto aboowe baad leedahay. Haddaad Hargeysa joogto sidoo kale lahjad baad leedahay waariyaahe waree accent ama lahjad gaara ayaad ku hadlaysaa. So simply accent waa lahjadaha kala duwan ee luqada ay leedahay. So inagoo Soomaaliya oo tiradeenu intan tahay ba intaasoo lahjadood kala leh. So imagine how many accent bay luqad English oo intaasoo billion oo qof ay ku hadlaan ay yeelanaysaa. Way fara badnaanaysaa. So don't focus on the accent, focus on the pronunciation. Miisaanka marnaba ha saarin lahjadaada ee miisaanka waxaad saartaa qaab dhawaaqa aad kelmadaha ugu dhawaaqayso. So that's it for this video inshallah. Muuqaalo fara badan oo kale oo xiiso leh inshallah casharadaas ay la tacalluqaan grammar tips kaas, pronunciation ka, accents ka, waxaasoo dhan baa inshallah inoo soo socda. So subscribe and turn on the notification at 11. So
Again, if you're interested at doing a mentor or courses online, you can contact us, inshallah. muuqaalkii koobaad buu ahaa waan rajaynayaa falcelin fiican insha Allah inaan maxay ahayd tolay aan kala kulmo si ay anigana igu dhiirigeliso inaan maxay tolay muuqaalada aniga oo kala aan sii wado insha Allah waxyaabo aad u fara badan oo xiiso leh way noo soo socdaan. Thanks for watching. Again, subscribe for more.